بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أمضى مسلمك وحنوهم بلينا عيد عرفة بركيسا وحنولينا هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي سبحانه وتعالى وحنكبرينا إن حضورك يعشق أمضى مسلمك كقاضه بلايوينك يا أبوينك الصعودة كورونا فيروس أقوى هاي إلهي أمضى وكبت بادي كان قاضه barwaaqiya bayaxow degdega ilaahay inuu ummadda siiyaan ka baryaynaa. ummadda muslimka meel walbay joogto waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado, dunidan laga sahay qaato, adduunyo badni kuguma deeqdee barakay kugu deeqdaa iyo xalaasha ha lagu dadaalo, khayaanada iyo dhagarta ha la iska ilaaliyo. dadka ganacsatada ah inay si xalaala u shaqaystaan oo ilaahay ka cabsadaan ayaan u dardaarmaynaa. xuquuqda aadamuhu ay ku leeyihiinna intay nool yihiin ay iska gudaan, khayaanada iyo dhagarta iyo qishigana iska ilaaliyaan, maalkoodu ay wixii khayra ka gutaan oo sadaqaadka ka baxshaan, xigaalada iyo qaraabada laga xidhiidhiyo. intaasi waxaan u dardaarmaynaa dadka ganacsatada. siyaasiyiinta dembiyada waaweyn ku jira waa is ogyihiin, hadda waxba u bixi mayna, ilaahay ha ka cabsadeen, rabbi ha u toobadkeeneen towba jamiila, ilaahay ha u noqdeen, ummaddana yaysan lugoynin. duqayda iyo waayeeladu ummadda hor jooga ee beeldaajiyaasha ah shayga xaqa ummadda ha u horseedeen. baatil lama taageero, balayaan lama afuufaan la yidhi, marka beenna lama quuto. marka waxaan duqaydaa ka codsanaynaa ummadda ay hor joogaan inaysan aafaynin, waddo iyo khayr u horseedaan, ilaahay ka cabsadaan. maalmo tirsan bay adduunka joogaan, maalmahaasi ilaahay ha u noqdeen, ummaddana horseed iyo wanaag ha u horseedeen, ilaahay ha ka cabsadeen. dumarku guryaha jooga xaqooda ha guteen, carruurtoodana ha tarbiyeeyeen, raggooda xaqiisana ha iska ilaaliyeen, cawradooda iyo jirkoodana ha astureen. culummada ummadda hor joogta ilaahay ha ka cabsadeen, xarafka diineed si daacad ha u sheegeen, danaha khaaska iyo danaysiga ha iska ilaaliyeen. xaraf aan la hubin iyo masale aan saxnayna ummadda ayaan lagu lugoynin, ilaahayna ha laga baqo, midnimada ha lagu dadaalo iyo wada jirka. wixii shareecadu marka aysan diidanayn inta laysu dulqaadan kara laysu dulqaato. ciidan ciid lamid oo barakaysa ilaahi subxaanahu wa tacaala ha nabada nagu gaadhsiiyo, khayr iyo barwaaqo alla ha nagu gaadhsiiyo. wadcigan hadda adageennu ku jiro mid ka fiican ilahi ha noogu bedelo. ummadda intii dhuunsan ilaahay ha soo hanuuniyo, inta hanuunsanna ilaahay ha u kordhiyo. xigaalada iyo qaraabada ha laga warqabo, ha la xidhiirsho. waxay soomaalidu yidhaahdaan xaasid lama korsado, xaasid lama korso, xigaalan lama gooyo ayay yidhaahdaan. marka ninka xaasidkaa lama korsado iyo waa la gooyaa, macnaheedu waxaa weeye xaqaa loo sheegaa. haddii xal laga waayana marka unbaa goyntu imanaysa. inta badan gegsi iyo dulqaad baa loo baahan yahay. haddaan laisku gegsanin gobonnimo ma timaado. ha laisku dulqaato, alla sabro. yaan degdeg iyo faqri xoog kugu daahay ama xanuun yimid ama xisaabo aad doonaysa inay degdeg kugu yimaadaan ood heli weyday, yaan xaaraan loogu dhicin, yaan lagu xadgudbin, diinka yaan lagu tumanin. ururaysiga iyo faaraqabiilka diinada ummadda baabina ha la iska ilaaliyo. soomaali qabyaalad baa dilootay, qabyaaladda ha la iska dhowro. aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad barakaysan oo diinkeeda u dadaasha, allana ka cabsata, duniyadeeda ka shaqaysata, xumaha iska qabata, wanaagga istaarata allah idinka dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala xilligan xilli ka khayr badan, cizi iyo sharaf iyo awoodba aynu leenahay allah na gaadhsiiyo. waa laga bixi doonaa dhibkan dhan walbaba, xagga siyaasadeed, xagga dhaqaale, xagga midnimo waa laga bixi doonay. ha la gegsado, nin walbana in taariikh wanaagsan uu ka tago ha ku dadaalo. intaasan odhan lahaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.